السلام عليكم سو دواada welcome to my YouTube channel maanta waxaan doonayaa inaan baro fetal circulation habwareega dhiigga ee ilmaha dhiigga markuu ka soo tago placentada oo asaga oo wata nafaqa iyo oxygen wata wuxuu soo galaa wax loo yaqaan umbilical vein sideeda placentada waxay leedahay two arteries and one vein marka umbilical vein ayuu soo galaa kadibna waxa la geeyaa meel loo yaqaan ductus venosus umbilical vein markuu dhiigga soo galo qayb waxa la geeyaa ductus venosus qaybna waxa loo geeyaa bottle and hepatic circulation waa meeshii oo maartay waa beerka marka dhiigga dhamaantii beerka lama wada geen kara sababtoo ah ilmaha beerkooda uu jilaa aad buu jilaa u yahay marka dhiigga qaybna waxa la geeyaa bottle and hepatic circulation qayb kalena waxa la geeyaa ductus venosus dhiigga ductus venosus ka tago ductus venosus waxay hoos maraysaa liver beerka hoos maraysaa marka dhiigga ductus venosus ka hoos tago wuxuu aadayaa inferior vena cava sideeda vena cava waa xididka qofka bini'aadamka jirkiisa ugu weyn vena cava waxa jirta superior vena cava and inferior vena cava waxay dhiigga ka soo qaadaa qaybta hoose iyo the walls of the abdomen iyo caloosha mindhicirada marka inferior vena cava markuu dhiigga imaano dhiigga waxa la geeyaa the right atrium dhiiggan right atrium wuxuu kula kulmaa dhiig ka imaanay the superior vena cava oo oxygen lahayn sideedaba qaybta midig ee wadnaha waxay qaadaa dhiig aan oxygen lahayn qaybta bidixna dhiig oxygen ee sanbabada ka imaanay marka the right atrium buu dhiigga imaanaya dhiigga ka imaaday inferior vena cava right atrium ku imaana wuxuuna la kulmaa dhiig aan oxygen lahayn oo ka imaanay the superior vena cava right atrium markuu dhiigga imaana toos uma aada right ventricle ka toos uma aada wuxuu aadaa qayb almost 30 to 35% boqolkiiba 30 ilaa 35 dhiigga wuxuu aadaa meesha loo yaqaan foramen ovale maxay tahay waa duleelkaas oo u dhaxeeyo the right atrium and the left atrium waa duleel foramen ovale la yiraahdaa labada qaybood ama the two chambers of the heart buu u dhaxeeyaa meesha septumka darbiga septumka duleel ka samaysan waay kadibna the foramen ovale ayuu galaa wuxuu u gudbayaa left atrium dhiigga markuu tago wuxuu la kulmayaa dhiig oxygen leh oo ka imaanay sanbabada kadibna wuxuu u gudbiyaa the left ventricle contraction buu sameeyaa wadnaha left ventricle ku gudbiyaa kadibna dhiigga wuxuu loo gudbiyaa the aorta waa laba waa qaab waa to ascending kor aada iyo mid hoos aada oo descending marka and then it's taken to the rest of the body marka fetal circulation waa wax sida u fudud habwareega dhiigga ilmaha uu ka duwan yahay kan hooyada dhiiggeeda ay leedahay ilmahana dhiiggiisa ay leeyahay isku mana milmaan unless cunugu markuu dhalanayo oo koodhada la jarayo moogi inta badan isku milmi karaan intaas salaam alaykum nabadgelyo please subscribe to my YouTube channel